Thank you, Mr. Prime Minister, His Excellency Dr. Cabdullaahi, Excellencies, fellow heads of states and governments, ladies and gentlemen. Mudane Ra'iisul Wasaare Dr. Cabdullaahi Xamduug, madaxda dalalka iyo dawladaha IGAD, mudanayaal iyo marwooyin. Waxaa sharaf iyo mudnaan ii ah inaan ka soo qayb galo shirka madaxda IGAD ee maanta ku qabsoomaya dhanka qadka. Waxaan kaaga mahadcelinayaa mudane Dr. Xamduug qabanqaabinta iyo qabashada shirkan. Tani waxa ay marag u tahay dadaalkeena wadajirka ah ee aynu ku doonayno inaynu ku xaqiijino iskaashi bulsho iyo mid horumareed oo ay ku tallaabsadaan dadiyowga ku dhaqan dalalka IGAD, taasi oo ah mid dhammaanteen isu keentay xilliyo adag oo ay jiraan xaaladaha adag ee ka dhashay cudurka safmarka ah ee COVID-19. On the South Sudan peace process, I would like to recognize the efforts of all the parties to work towards political reconciliation and the strengthening of security cooperation. I also welcome the ongoing process of integrating and rebuilding of inclusive civil and security institutions which will benefit the brotherly South Sudanese people. The Somali federal government congratulates President Salva Kiir on the appointment of his inclusive cabinet that will now be tasked with taking South Sudan forward. Arrinta geedi socodka nabadda ee Suudaanta Koonfureed waxaan rabaa inaan bogaadiyo dadaalada ay galeen dhammaanba dhinacyada kala duwan ee ka shaqaynayay in la gaaro dib u heshiin siyaasadeed iyo xoojinta iskaashi amni. Waxaa kale oo aan rabaa inaan dhiirigeliyo hanaanka socda ee isku dhafka iyo dib u dhiska hay'adaha dawliga ah ee rayidka iyo amnigaba, kuwaas oo faa'iido weyn ugu fadhiya dadka aan walaalaha nahay ee reer Suudaanta Koonfureed. Dawladda Federaalka Soomaaliya waxa ay hambalyeynaysaa Madaxweyne Salva Kiir magacaabistiisa golaha wasiirada loo dhan yahay, kuwaasi oo shaqadoodu noqon doonto in Suudaanta Koonfureed ay horay u sii wadaan. Soomaaliya waxa kale oo ay soo dhaweynaysaa xabad joojinta waarta ee ka dhex hirgashay dhinacyadii saxiixay heshiiskii qaraarka khilaafka Suudaanta Koonfureed. Tanina waa astaan cad oo muujinaysa sida ay dhinacyada uga go'an tahay heshiisku. Hase yeeshee, waxaa jira caqabado adag oo gudaha ka soo ifbaxay, kuwaasi oo muhiim ka sii dhigaya in la sii dardargeliyo hanaanka nabadda. Si la mid ah dawladaha kale ee xubnaha ka ah IGAD, COVID-19 waxa uu dhaawacay dadka iyo dhaqaalaha Suudaanta Koonfureed. Hadda, si ka badan ebed, waxaan u baahannahay inaan isku xirno nabadda, amniga iyo dhabar adeegga loo baahan yahay inaan isaga dulqaadno oo aan ula dagaalanno safmarka COVID-19 ee gobolkeenna. In our region, peace and progress are built on understanding and compromise and sustained through inclusive governance and economic development. Our experience in Somalia is that rebuilding from conflict requires patience and perseverance. Nabadda iyo horumarka waxaa lagu dul dhisaa isfaham iyo tanaasulaad iyo weliba iyada oo loo marayo hannaan dawlad loo dhan yahay iyo horumarin dhaqaale. waayo aragnimadeena Soomaaliya ayaa ah in ka soo kabashada xasaradaha loo baahan yahay dulqaad iyo dhabar adeeg badan. Dawladda Suudaanta Koonfureed iyo dhammaanba dhinacyada qaybta ka ah hanaanka nabadda waa inay sii laba jibaaraan dadaalada ay hubantida uga dhigayaan xasiloonida iyo joogteynta horumarka kale ee Suudaanta Koonfureed, taasi oo faa'iido u ah dadkeeda aan walaalaha nahay iyo weliba xasilooni iyo barwaaqo guud ahaan gobolka. Inkasta oo caqabada naga hor muuqdaan, dawladda iyo dadka reer Suudaanta Koonfureed waxa ay ku kalsoonaan karaan in dhammaan xubnaha IGAD ay diyaar u yihiin inay ka caawiyaan wax kasta oo suurtagal ah. Madaxda dawladaha iyo dalalka IGAD, mudanayaal iyo marwooyin, xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya ayaa ah hadda mid degan, waxaana hadda noo kordhay aqoon badan oo xakamaynta cudurka ku saabsan, annaga oo adeegsanayna tijaabooyin kala duwan, iyada oo la wada og yahay in ka hortaggu uu ka wanaagsan yahay daweynta. Dawladda Soomaaliya ayaa sii wada inay muwaadiniinteeda baaritaan xagga cudurka corona ah ku samayso, waxaana hawshan lagu fulinayaa xarumo gaar ah, waxaana si tartiib ah dib ugu furaynaa dhaqdhaqaaqii dalka, iyada oo ay xusid mudan tahay in maalgelin lagu sameeyay xagga xogaha caafimaadka iyo adeegyada aasaasiga ah. Caafimaadka iyo badqabka dadkeenna waa arrinta inoogu muhiimsan. Hase yeeshee, inkasta oo dadaalo badan la sameeyay, weli waxaan u baahannahay agabka difaaca shakhsiga
iyo dhismaha xarumo dheeraad ah iyo rugo caafimaad dalka oo dhan. On the economic front, stark challenges remain as trade and economic activities have sharply fallen. Continentally and regionally, the economic outlook for 2020 and beyond looks uncertain. In Somalia, we are working with international financial institutions and other valuable development partners. Dhanka dhaqaalaha, waxaa jira caqabado ragaadiyay ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha kuwaasi oo aad hoos ugu dhacay. Guud ahaan gobolka iyo qaaraddaba, saadaasha kobaca dhaqaalaha waa mid aanan fiicnayn. Soomaaliya waxaan hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah iyo bahwadaagta kale ee muhiimka u ah horumarka kala shaqaynay tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay kabka miisaaniyadda si aan isaga dulqaadno saamaynta xun ee dhaqaalaheenna ku yeeshay safmarka COVID-19. Caqabadaha dhaqaale ee guud ahaan haysta dalalka IGAD waa arrin ay qasab tahay inaan qiimayno kana baranno casharo muhiim ah innaga oo horay u sii ambaqaadayna iskaashigeenna dhaqaalaha si aynu u hubinno in xoghaynta IGAD ay si fiican ugu diyaargarowday dadaalada dib u dhiska iyo soo kabashada ee dalalka urur goboleedka IGAD marka laga gudbo cudurka COVID-19. waa inaan dardargelinaa dib u habeynta hay-adaha iyo dib u qaabeynta IGAD iyada oo la raacayo heshiisyadeennii hore. Midani waa ahmiyad muhiim ah oo ay tahay inaan fulinno si aynu u xaqiijinno howlaha wax ku oolka ah ee ururkeenna iyo sidii aynu u xoojin lahayn ka falcelinta caqabadaha dhaqan-dhaqaale iyo amni ee gobolka horyaal. waad mahadsantihiin dhammaantiin. Of our organization and to strengthen it to respond to the serious regional socio-economic and security challenges ahead. And I thank you.